inankiisii waddanka la soo dhigtay maanta siidhiga dagaal u afuufaya yaan la raaci baan leeyahay doorasho idinku dhiman mayno horaan ugu soo dhimannay dhalinyartay siidhigaan idiin afuufayaae maya dagaalla nali ninkaasi madaxnimo uma socdo waa koluun afka buuxso kursiga ku fadhiisan maaya kaasi min Soomaaliland daana yani maantan wahayn dadka waa la kala yaqaanaa siidhi la afuufo idinku dhiman mayno waa fariinta jawaabta looga dhigayo hadallada dhilada leh ee ka soo baxay xisbiyada mucaaridka ee Somaliland halkani waa Gabiley Somaliland daliniya way dhamantood siday u dhisteen dhulkoodii nabada u dhidbeen alawdow uqaasha salaadiinta iyo boqorada gobolka Gabiley ayaa ka dhiidhiyay hadalka dhaawaca ku qaranka ee ka soo yaray xisbiyada mucaaridka ee Somaliland kuwaasi oo ay bulshada reer Somaliland ugu baaqayaan dagaal iyo xabad xilli Somaliland 2 sano ay ku noolaanayso nabad kala dambeyn dimuqraadiyad iyo dawladnimo buuxda waxaana uqaashan iyo salaadiintan ay bulshada reer Somaliland ugu baaqeen inay meel uga soo wada jeedsadaan cid kasta oo dhibaato ku ah nabadda Somaliland maanta ku noolaanayso iyo in aan la dhageysan siyaasi dana gaar leh oo ay ka weyn tahay qaranimada iyo nabadda Somaliland waxaana yiraahdeen war waddanka rag baa meel kale laga hagayo siidhiga looga hayay ninkii siidhiga u hayay wuu dhacay ninkii siidhiga loo hayayna wuu raacayaa war waxaan leeyahay dhallinyarooy waa nin waddankii dana awlaaddiisii waddankana soo dhigtay oo idin galaafanin waa naftiinna ilaashada nin walba inankaaga ilaasho ninka inankiisii waddankala soo dhigtay ee maanta siidhiga dagaal u afuufaya yaan la raaci baan leeyahay laakiin xaq nooguma lihidin noo dhinta nimanka ku baaqaya inaan u dhimannana waxaan leenahay doorasho idinku dhiman mayno horaan ugu soo dhimannay horaan ugu soo dhaawacannay waxaanu leenahay maalintay gaadho waa laysa soo sharay cod bayna kala saaraya waxaa kaloo dhalinyarta ma u sheegaynaa saanis fiican baad hesheen waad ka nasiib badan tihiin kuwii u dhintay amba u dhaawacmay idinku maanta midhahoodii baad cunaysaane waxaanu idin leenahay ayaan dhaya laydinkaga daadin waxaa kaloon rabaa inaan idiin sheegno da'yaray xabaddu way xurun kulushahaye yaan xabad la idinku baaqin xabaddu way xanuun kulushahay kuwii soo maray baa garanaya kuwa sitaa garanaya waxaanu kula dardaarmaynaa in xabadda laydinku baaqayaa ka waantowdaan ninka maanta 18 May oo caalanka lagu farxayo oo maanta ciidamada iyo dhalinyarta iyo duqeyda iyo islaamaha cidkii dacla iyo cidii daayarba la wada faraxsan yahay ninka maanta siidhisita ee 18 May siidhigayga dhageysta leh waa ninkaasi siyaasi muu socdaa uma socda siyaasi ninka siidhigaan idin afuufa leh ee madaxnimo ku socda ee madaxnimo doonatid leh ee dhalinyartay siidhigaan idin afuufayaae 18 May dagaalla nali ninkaasi madaxnimo uma socdo waa koluun afka buuxso kursiga ku fadhiisan maaya kaasi waan iska ogaada dhalinyartay ciddii da'yarey idinkaa malabka u hadhaya ninka idin hoggaaminaya iyo ninka aan idin hoggaaminayn ee siidhiga sita iska ilaaliya war waddanka idinkaa u siyaasiya dhalinyarta idinka dambaysa waxbara sida dawladnimada loo hoggaamiyo bara hormuudu noqda ha odhannina maanta reer hebel baa loo jeedaa waan ha barina dhalinyarta waxaa reer hebelnimada ha barina waxa baraya waa kuwa siidhiga sitee ha barina waan waxaan idin leeyahay dhalinyartaay idinkaa dalka laydinku soo halgamay kii ku dhintay jannaduu galay allah u naxariisto nimanka siyaasiyiinta ah ee jeebka ku sita ee la wada og yahay ee haddana madaxnimo ka doonaya Somaliland war waad quusatay iska quuso ama gudcur soco ama cadda soco ama duhur soco maanta cid aan la aqoonin ma jiro nin Somaliland daana
يعني ما عندنا وهين تتكوالك يا قانا ويلا حاجة تلفزيون كقرنكا قبلي